ku-xigeenka warfaafinta ee dawladda federaalka wasiirka nagi amniga taliyaha xasilinta taliyaha booliiska gudoomiyaha degmada iyo maamulkiisii asluubta ma sha Allah iyo taliyaha Harmacad dhammaan waan salaamaya iyo shacab weynaha degmada Doolow hooyooyinka odayaasha waxgaradka dhalinyarada iyo uqaasha culamaa diinka oo saaka si hagar la'aan u soo baxay aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan waligiinba waad ahaydeen dad nabadeed oo nabadda jecel wanaagana jecel sida aad u soo dhaweyseen ilaa shalay ilaa xalay ilaa saaka sida aad u taagnaydeen aad iyo aad baan mar labaad idinkaga mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego anigu warkayga ma badno oo rabaa inaan u mahadceliyo wasiirkanaga Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo aad u taqaanaan oo ninkii maarta ay sheegeen wasiirkanaga ahaa aad iyo aad sida geesinimada leh wanaagga leh sharafka leh dadnimada leh oo ugu tanaasulay dadkiisa iyo dalkiisa runtii waa wax taariikh ah way maalinba taariikh ba soo baxda wanaaggaas iyo sharafkaasna wasiirka aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa walbana nabadda ugu wanaagsan nabadgelyada sida uga qayb qaatay waxaan kaloo rabnaa inaan u mahadceliyo wasiirkanaga Cabdiraxmaan iyo wasiir ku-xigeenkanaga iyo ragga kale oo howlwadeennada ahaa iyo dhammaan sida ay uga qayb qaateen xiriiradan iyo wanaaggan iyo nabadgelyada iyo in maartay gada maanta ay nabad noqoto aad iyo aad baan wasiir yaan idinku mahadcelinaynaa dhammaan shacabka gobolka Gado meel kastuu joogo xalay aad baa idin soo salaamay waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo taliyaasha ugu horeeya taliyaha xasilinta taliyaha booliiska iyo taliyaasha kale oo runtii ayagana aad iyo aad u shaqeynayay oo nabadgelyada aad uga shaqeynayay dhammaan gudoomiyaha degmada Doolow iyo gudoomiyaasha deegaanada gobolka Gado iyo dhammaan ururada hooyooyinka iyo dhammaan odayaasha oo runtii aad iyo aad wax badan uga walwalsanaa arrimahan siday ku dhamaan doonaan dhamaantiin maanta waxaan nahay waa maalin farxadeed ilaahay baa noo dhameeyay waan nabadownay waan barwaaqownay wixii naga dhimanay insha Allah waxaan rabnaa iyagan inaan dhamaystirno haddii ilaahay yiraahdo